dhaweyntiina deedana waa ka mahadcelinaynaa runtii oo loo kala helin qalbiga wanaagsan iyo wejiga furan ay ka muuqato runtii waxaan waa mahadsantihiin siday u sheegeen oo mas-uuliyiinta iga horeysay safarkaynu dhowr qodob oo isugu jiraa aniga maalmihii lasoo dhaafay waxaan ku sugnaay qaybo ka mida gobolka shabeellada dhexe oo ka socday howlgalku laguna dagaalamayo markaan qawaarinta ummadan nolosha iyo horumarka u diiday facebookii waxay ogeedeen gobolka hiiraan howlgalku ka socday buulo gurto maxaas matabaan beledweyne intaasaan isu marnay si aan u dhiirigelino howlgalka socdo runtii waxaan dhihi karaa horumar aada u wanaagsan ayaa naga gaaray cid kasta ay gacan ka geysatana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin horumarkaas naga gaaray ee aan loo kaleyn hadday ciidamada qalabka sida tahay iyo hadday tahay bulshada gobolka hiiraan oo u kala helin iyo hadday tahay mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo mas-uuliyiinta heer federaal xildhibaanada federaal ku horeeyaan ee maalin weliba furunta taagnaay guud ahaan ummadda hirshabeelle runta loogu mahadcelinayaa duulaanka lagula dagaalamayay nimankaan argagixisada cid kasta ay gacan ka geysatay waa mahadsantaan leehay runta adduunkana sharaf ay noo tahay aakhiran ajaraa laga helayaa waxaan leenahay inta naga dhimantana allahuma naxariiso inta dhaawactana allah caafiyo waxaad mara ka tihiin meesha ay marayaan ninka qawaaninta ahay iyo jabka gaaray iyo sida loogu dhiiraday dhibaataday sameynaya waa laweeye guryaha laga joogi lahay haddana ayagiyaa dhuumanaayo runtii waa guul in lagu dhiirado lala dagaalo meydkooda daadsan goob weliba aad indhihiina aad ku arkaysiin cid kasta ay gacan ka geysata waxaan leeyahay waa mahadsan tahay maanta gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellada dhexe dhanka webiga kabadiya howlgalku waa isu furmaa waqtigu u dhow shalay waxaan joogay gobolka shabeellada dhexe weliba degmada aadaya waa qaybo ka mid ah oo furunta maantana waxaan joogaa gobolka hiiraan ujeedkuna wuxuu yaasow webiga kabadiya oo dhan shabaab looga weynahay insha allah waana dhacay waqtigu u dhow face trigana haddii la raalli ka noqdo waxaan isu turi doonaa webiga kadib ugana heli ma doono intay hal geedoo ka mid ah ama hal goobo ka mid ay ku sugan yihiin deegaanada hirshabeelle insha allah haddii la raalli ka noqdana markaan hirshabeelle xaqiijino xornimadeeda iyo in ummadeedu nabad joogto dalka soomaaliya ayaan gacantan ka geysan karnaa ka geysan doonaa dhihi mayno hirshabeelle waa xora waa keenaynaa laakiin cadowga soomaaliya intuu meel kamida ku sugan yahay waa daba soconaynaa xooga xoola waxaan hayno waa geli doonaa haddii la raalli ka noqdo ilaa dalka laga xoreeyo nimankaas qawaarinta runtii aad iyo aad aan uga mahad celinayaa soo dhaweyntiina ujeedku wuxuu ahay inaan dhiirigelino howlgallada socdo ujeedku wuxuu ahay inaan sida wasiirka arrimaha gudaha idiin sheegaba meeshay xasilintu marayso deegaan kastee la xoreeyo waxaa naga go-an in horumar muddo ka xayirnay hadday tahay mashaariicdu nuucyada kala duwnaay iyo hadday tahay gargaarkii degdeg ahay intaba waa lala soo gaaraa insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo howlgalkoon ma aragtayaa dhiirigelino iyo bulshadoon loo adeego wax kastee la qaban kara la qabto oo dhinaca xasilinta ah insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo waa isku xigaan deegaan kastee la xoreeyana horumarkiisaa laga shaqayn doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo sida mas-uuliyiinta iga horreysa ay u sheegeen waxaan ugu soo wajahan wafdi aada u ballaaran oo madaxweynihii dalka ugu sarreeyo oo hogaaminaya insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo runtii madaxda dalka oo madaxweynuhu horeeyo waa uga mahad celinayaa xaqiiqdii sida uga go-an tahay maanta waxay ku sugan yihiin qaybo ka mid ah muxuu ahaay hirshabeelle oo degmada maxaas ayay ka degeen berrina insha allah waxaan rajaynaynaa inay degmada beledweyne ka soo degi doonaan waxay ku tusaysaa ka go-naashada madaxweynuhu sida uga go-an tahay dalkan in khawaarijta laga celin jiro runtii waa mahadsantaan leeyahay madaxweyne siday kaaga go-an tahay annaguna insha allah haddii ilay raalli ka noqdo garabkaagan taagannahay hortaadaan taagannahay waana naga go-an tahay haddaan nahay reer hirshabeelle markaatigeedana adduunkaa mara ka ah sida loola dagaalay oo hirshabeelle gaar ahaan gobolka hiiraan hawsha laga qabtay iyo midda hadda shabeellaha dhaca ka socoto ayaa ah markaati cad inay ummadda hirshabeelle ka go-an tahay inay la dirirto qawaarijta iskana dul qaado aad iyo aad aad u mahadsantihiin ballantaynu waa nimankan khawaarijta aan ka xoreyna deegaanadayna ballantaynu waa inaan isugu tagno howlgalka inta dhimana aadaya baan degmada aadaya baan aan isugu tagno
يهرنجودا يودمين دقمين كان كلامنا ولا جحري كدبنا إن شاء الله هذه اللي كان نقول مو أغلب العلم عليه وحنا نسوي كل دورنا وجهك السدحات إن شاء الله هذه اللي كان نقول هل كاسان الله لما أدي هذا المحسنتين وأمهات علينا يا هريرا دلالك يسودون لذا هي دلالك سلوك وقايا خواريت الأولى دلال مايو أدي هذا المحسنتين سولويتين ونكسر وكم علينا